madaxweyne ku-xigeenka Puntland General Cabdisamad Cali Shire iyo waftiga uu hogaaminayay oo ku sugan maalintii labaad magaalada Taleex ayaa maanta kormeer ku kala bixiyay goobo badan oo ay ka mid yihiin goobaha taariikhiga ee ku yaala magaalada Taleex kuwaasi oo ay ka mid yihiin silsilad falaad iyo daar ilaalo sidoo kalena waxa halkaas iyaguna marayay injineer ka socda hay'adda bisha cas ee wadanka Kuwait isla markaasina uu kuurgalay xaaladda biyaha ee magaalada goobaha oo madaxweynuhu kormeerka ku marayay ayaa waxa kamid ah sarta dheer ee falaad oo iyadoo madaxtooye u ahayd Sayid Maxamed Cabdulla Xasan isla markaasina waxa sartan taariikhdeeda ka warbixiyay Ahmed Maxamed Dubays oo kamid ah waftiga waa meeshii taliska u ahayd rugta uu degay sayidkuna u ahayd saad aragtaan dhismaheedu waa dhismo qadiimi ah waxa 1919 qorshaysay diyaaradihii Ingiriiska ee ka soo duuli jiray ka soo kacay burco tii ugu horeysay ayaa bamgareysay inta ka dambeysay wax dhagax oo ka dhacay ma jiro saad leeyahay waxaad garan kartaan sida ay u ahayd meel istiraatiiji aad loo adkeeyo loo dhisay waxaad arkaan daloolada muuqda waa dalooladii waardiluhu uu qoriga u la jiray shiishka aha iyo koraga saaraan jiray hoosteeda waxa ka qodan ceelasha biyaha oo lagu noolaan karo intii la doono waxa kale oo aha kaydkiisa khayda oo haruurka iyo waxyaalaha daraawiishta isticmaali jirtay ee u hoos oo laayeen si aan banaanka wax looga baxda aanay u jirin marka waxay meel qadiimi ah waxa laga joogo waqtigii la dhisay 100 sano baa laga joogo waqtigii la dhisay marka qadiimiga ka garanaysa dhagaxa lagu dhisay sida uu yahay nooca loo dhisay engineering ka dhisay sida ay tahay iyo qaabka loo sameeyay ka garanaysa injineerada ka socda hay'adda bisha cas ee wadanka Kuwait ayaa iyaguna halkaas hadal ka soo jeediyay عن طريق الهيئة الإغاثة الصومالية شركة الفرات وإن شاء الله نحدد المكان وخلال أيام قليلة نبدأ العمل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وحي الرحمة الكويتية بش عسى الكويت وحنا نقول إن هالكن إنه صامينه لهذا وقت بالجملة مدير كدمنا إن شاء الله هذه لا وحنا بلعبنا إنه عيال قبضة وشغال. dhanka kale madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa waxa ay kormeereen goobo kale oo ay ka mid yihiin MCH-ka magaalada isla markaasina ay ka howlgalayaan dhaqaatiir la socotay waftiga madaxweynaha waxana madaxweynaha halkaas ku soo dhaweeyay agaasimaha caafimaadka gobolka Sool ilaa hadda shaqo fiican baa la qabtay oo u jeeda hadda inay daarada dad fara badan joogaan hooyooyin iyo caruura waxaan rajaynaynaa insha Allah maalmaha soo socda inay shaqadaas sii socon doonto waxaan kaloo doonayay inaan u sheego in laga faa'iideysto dhaqaatiirta sida volunteerka iyo daawada quality-ga leh European-ka inay u yimaadaan oo qaataan daawada wanaad iyo faa'iideynaya waxaan kaloo doonayay inaan laga faa'iideysto meediyaha inaan cusbitaalka tiibada aan dhisi jirnay sanadkii hore inaanu bisha tan bilowgeeda inaan furi doono iyadoo loo shaqaaleysiiyay oo loo tababaray toddoba qof lana geeyay garoowe hadda tan insha Allah waan doonaynaa aanu furno wasaaraduna mid waxay ku tahay inay degmada Taleex caafimaadkeeda inay u kuurgasho waxna ka qabato dhawaanna waxaan tagnay anaga iyo tiinka dhaqaatiirta caafimaadku sarmaayo iyo waxaan tagnay deegaanka Oogays iyadoo laga soo qabtay 400 qof oo soo daaweeyay hadda ka horna waxay waxaan tagnay qooxamiyo meelaha kale marka waa caadi noo tahay wasaaradda caafimaadka ay u tahay inay mar walba tagaan deegaanada gobolka Sool madaxweyne ku-xigeenka Puntland General Cabdisamad Cali Shire ayaa sidoo kale dhagax dhigay ceel cusub oo laga hirgelinayo magaalada Taleex isla markaasina markuu kormeer ku soo dhamaaday shir jaraa'id ku qabtay gudaha aqalka uu ka degan yahay magaalada Taleex isla markaasina uga hadlay ceelka laga hirgelinayo magaalada Taleex kaasi oo ay hirgelinayso shirkadda Hilaal al-Ahmar ee wadanka Kuwait waxana madaxweynaha hadaladiisa kamid ah wanaaga inay maanta halkan la joogaan injineer ka socda hay'adda bisha cas ee dawladda Kuwait ee walaalaha waxay u socdaan inay baaraan meel biyo fiican laga heli karo ee magaalada Taleex iyadoo ay maxoogaa loo tahay inay dhibaato weyn dhinaca biyaha ay ka jirto deegaamada Puntland badiba gaar ahaan gobolka Sool maanta waxaynu ognahay in ay dawladda Puntland isku hawshay siday dadkeeda uga xaqabtiri lahayd biyaha oo runtii nolosha aasaas u ah waxa loo qooday ceelal dhaadheer degmada Xudun magaalada Xudun Sarmaayo
ballaydiyaale ceegaag iyo kulaal haddana waxaa gacanta lagu hayaa boocane iyo carooley iyo taleex aynu maanta joogno oo baaritaankii lagu samaynayo aanuna ku rajo weynahay usbuuca soo socda in halka kan hawshii laga bilaabo saas darteed waxaan ugu baaqayaa bulshada reer Taleex inay mataqaanaaye ceelka ama biyaha la qodayo ay gacan ka geystaan dadka qodayana ay soo dhaweeyaan waxa weeye dad badan baa hore u jiray oo hay'adaha oo yimi halkaana ama baabuur laga jabiyey ama wax lagu tuuray waxaan ku goorinayaa guubaabinayaa in cidii wax u qabanaysa ay soo dhaweeyaan weji iyo mataqaanaaye weji furan iyo wanaag ay ku soo dhaweeyaan waxaa laga yaabaa meesha ceelka laga qodayo in ay dhici karto in dad ay leeyihiin annaga ale waxaa loo baahan yahay inay u arkaan ceelkaa laga qodayo dan guud oo ay ka gudbaan anaa ceelkaas cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir shombe TV-ga Somsat magaalada